ahayn kuwii aan xafladihii hore ee kuwa la midka aan dareemi jiray waxaan dareemayaa caawa markii ugu horeysay in fariintaydu meeshii la rabay iyo meeshii ka sii shisheysay ay gaartay ma aha inaan caawa halkan cashar ku bixiyey oo casharkaasi uu dad gaaray waxaan arkayaa natiijada resultiga ee waxa la yiraahdo mirihii wixii aynu muddada intaa leeg soo dhisaynay waxaan rabaa dhowr qodob oo muhiim ah inaan warkayga u kala qaado marka koowaad waxaan rabaa inaan si gaar ah ugu mahadceliyo dhalinyarada reer Jigjiga ee halkan caawa fadhida ee aadka u quruxda badan ee la'aantood ay soxbeen oo qabsoomeen dhalinyaradu waa lafaha bulshadeena waa miida bulshadeena wax kasta oo inoo qabsoomay cidda qabato waa dhalinyaro haddii idinku aydan ahaateen anigu ma jireen haddii idinku aydan ahaateen anu macallin ma noqdeen haddii idinku aydan ahaateen buug ma qoreen mar koowaad mar labaad mar saddexaad iyo mar afaraadba waxaan u mahadcelinayaa dhalinyarada quruxda badan ee halkan joogta kuwa ka kala yimid deegaanada fogfog ilaa Burco Berbera Hargeysa Boorama Wajaale ilaa Djibouti iyo qurbaha inta nooga timi intaba iyo qayb dalkii iyo Soomaaliya ka timi bandhig buug ayaan ku suntanay madasha magaceeda laakiin in reality waxay tahay bandhig waa ka guda ballaaran yahay waxaynu halkaan iskugu nimi waxaynu oran karnaa waa celebration waa farxad waa dabaaldeg waxaan muujinaynaa qodobka ugu horeeya uguna muhiimsan ee uu salka ku hayo kulankan waa inaan muujino bulshada inteeda kale inaan u muujino inay jiraan dhalinyaro Soomaaliyeed oo wax bartay oo naftooda hormariyay ku dadaalay inay guuleystaan halkana u yimi inay dabaaldegaan guul kadib kulanka ujeedkiisu ma daarna in forex la xayisiinayo ama financial markets la buubuuninayo kulanka idiyadiisu ma daarna buug macallinku qoray in laga sheekeynayo kulanka idiyadiisu wuxuu daaran yahay inaynu isla aragno the product of the product waxa la yiraahdo oo ah waxa aynu ka sheekeynayno miraheedii iyo dadkii kaalintii lahaa kaalintooda intay qaateen maanta guul iyo natiijo ka jooga dhowr qodob oo muhiim ah baan rabaa inuu warkaygu ka koobnaado anigoo fursaddan quruxda badan ka faa'iideysanaya mid waxaan rabaa inaan iraahdo traderska way maqlaysaan soo ma tan galaya okay kelmad waxaan rabaa inaan traderska iraahdo kelmadna waxaan rabaa inaan iraahdo waalidka dawladda institutionska dadka ummadeena ka mas'uulka ah kelmadda koowaad oo traderska hadaan ku hormaro waxaan idin leeyahay jana galayaal waad guuleysateen hambaliyo waad guuleysateen hambaliyo waxaan xasuustaa mar ay runtii adkayd qofkii inuu qiran karo inuu trader yahay caawana quruxda iyo farxadda iyo guusha iyo natiijada aynu ku raaxaysanayno waa wax runtii waqti badan ku soo baxay waxaan rabaa inaan traderska la hadloon iraahdo laba qodob ayaan idinkula dardaarmaya qodobku waxa weeye dhiirasho suuqan aynu qaybta ka nahay waa industry aad u weyn waa trillions of dollars industry way waa wax runtii ay sharks ku jiraan dawlado ku jiraan waxyaalo maaragtay qof iyo labo ka badan u baahan way waxay u baahan tahay dhiirasho af ingiriiska waxaa lagu oran karaa courage dhiirasho ku dhac dhiirashadu waxay gelaysaa inaad saacado badan baagtasin samaysay dhiirashadu waxay gelaysaa inaad koona waaweyn ku dhiiratay dhiirashadu waxay gelaysaa inaadoo jabay oo niyad xumaaday oo dib u laabtay aad soo kici kartid ballanta koowaad oo rabo inaan wada galno anaga idinku waxay tahay dhiirasho inaad dhiiratid inaad ku dhiiratid akoon markaa gudbisay mid labaad inaad qaadan kartid inaad ku dhiiratid 10 kun markaa samaysay 20 kun inaad samayn kartid inaad ku dhiiratid 100 kun markaa samaysay 200 kun inaad samayn kartid waxa kaliya ee horay ku wadi kara ama qofka high ambition kale waxa kaliya ee horay u wadi kara waa inuu qofku dhiirasho yeesho waa inuu qofku yeesho arrin loo siman yahay oo dadka qaybna sameeyaan qaybna aysan sameeynin adigu ku dhiiratid wax walba oo qurux badan oo maanta aynu arkaynana dhiirashay ka dhacday haddaba dhiirashay ku dhacday haddaba qofku markuu dhiirto ee xaaladuhu adkaadaan wuxuu u baahan yahay dhabar adayg wuxuu u baahan yahay resilience wuxuu u baahan yahay guusha quruxdeedu waxay timaadaa qofku markuu yara gilgisho ama markay yara arrimuhu adkaadaan markaad dhiiratid marka oo soo kalifto oo shaqo badan qabato oo akoonadii soo gudbiso oo processki soo marto
dabcan waxaa la kulmi doontaa drawdown baa la kulmi doontaa soo ma trade baa la kulmi doontaa soo ma dib u dhacyo kala duwan baa la kulmi doontaa waxa lagaga gudbayo waa dhabar adayg xal ma leh in duruuf lala kulmo maaha in la leeyahay duruuftaan si uga badbaadnaa maaha dhabar adayg bay rabtaa inaad dhihi kartid waa soo dhiirtay foolxumaa la kulmay duruuf baa la kulmay xaalad la kulmay qayb bay ka tahay guushe dhabar adayg bay u baahan tahay waxay u baahan tahay in loo dulqaato traderska waxaan leeyahay marka dhiirasho iyo dhabar adayg ayaan idinku ogaa runtii suuqaan aynu ku jirno waxaa ku jiri kara ama wax ka keeni kara qof hansara leh qof hamigu gubayo qof very high ambition ama ambitionkiisu meel sare u joogo sababtoo ah there is no limit ladderka ama jaranjarada aad fuuli kartid ee suuqan qofka ku jira uu gaari karo limit ma leh qof bini aadan oo kula mid oo 9 bilood ku dhashay baa $1 billion suuqan ka sameeya dad baa $1 million ka sameeya dad baa $100 million ka sameeya ikan xirfad kale ama shaqo kale oo sidaas limitless u ah I don't think inay jirto yes daldaloolo way leedahay waxbarashadu waqti bay u baahan tahay jihaad bay u baahan tahay that's why aan ku dardaarmayo dhiirasho iyo dhabar adayg qofku markuu maanta khasaaro oo dib u dhaco oo wax ka xumaadaan dhiirasho u baahan tahay kartida u baahan tahay ayadoo wax xun yihiin inuu qofku soo kaco inaad sugin inay cidi ku caawiso inaad hore u socotid kalmadda aan traderska leeyahay marka waxay tahay balanteenu waxay tahay dhiirasho iyo dhabar adayg balanteenu waxay tahay marka cid kastoo kale kaa quusato adigu inaad iska quusan adigu inaad naftaada kor u qaado inaad qof kale sugin inuu ku kiciyo ha noqoto mid qoysa mid qaraaba mid asxaaba mid trade kula jira businesskan aynu ku jirno ama tradingka marka la joogo waa sida tenniska oo kale ciyaaryahanka tenniska ciyaaraya cid kale miyaa caawin karta waa sida orodka dheer oo marathonka oo kale haddaad daasho hadhowna waxaa leeyahay qofkaas tartanka waa ka baxa ma aha sida footballka oo kale ama ciyaarahan oo collective sportska ma aha marka barnaamijka aad ku jirtid waa barnaamij individual sport ah individual sport markuu qof ku jiro ama wax shakhsigiisa qofka ay tahay inuu guuleysto markuu ku jiro waxa u baahan tahay inaad cidna sugin waxa u baahan tahay inaad dhiiran kartid waxa u baahan tahay inaad dhabar adeeg la imaan kartid annaga idinku more than thousands of hours baan isla hadalnay war ma kala dhamaysanayno dardaaranka aynan siinaya waxay tahay wax kasta oo adag wax kasta oo dhib ah wax kasta oo mushkilad ah waxa lagaga bixi karaa adigoo in yar dhigta markay xaaladdu adkaatana dhabar adeeg la yimaado intaas waxaan leeyahay intaas traderska aan leeyahay haddaan traderska halkaa kaga gudbo waxaan rabaa inaan fariin u diro mas-uuliyiinta siyaasiyiinta hoggaanka bulshada hoggaanka dowladda waaridka macallimiinta jaamacadaha dadka bulshadeenna mas-uulka ka ah waxaan rabaa inaan idiin dardaarmo oon idiin sheego dhallinyaradeenni waa kuwaana caawa halkan waxaa fadhiya imise qof oo traderska halkan fadhiya gacanta ma taagi karta boqolaal qof oo dhallinyara oo traderska halkan fadhiya waxaan rabaa inaan u sheego dadka ummadda ka mas-uulka ah waxaan rabaa inaad ogaataan dal kasta oo caalamkan horumaray dalalka caalamkan isbedelada sameeya 3 qaab bay soo maraan qaab waa dalalkii ka faa'iidaystay industrial revolutionkii ka dhacay Yurub iyo Mareykanka ama kacdoonkii warshadaha waxaa ka mid ah Yurub America wadamadan European Union kala isku dhaho dhan horumarkooda waxay uga abaalhayaan inay kacdoonkii warshadaha la jaan qaadeen marka wiilka Sweden ku dhashay ama wiilka Germany ku dhashay ama USA ku dhashay already 10 steps buu ka horeeyaa because wuxuu ku dhashay wadan oo kacdoonkii warshadaha ku horumaray kuwa marka laga yimaado wadamo kale waxaa jira ay caawisay natural resources-gooda intay si fiican uga faa'iidaysteen oo waxaa ka mid ah wadamada Middle East-ga iyo Carabta iyo qayb Asia-da ka mid ah iyaguna waxay ka faa'iidaysteen waxa la yiraahdo natural resources-gooda sida shidaalka iyo gaaska iyo wixii ku jiray wadamo waxaa jira labadaasba aan helin haddana guuleystay noloshoodu hagaagtay maantana kuwaas la tartamaya ama ka horeeya meelaha qaybtood wadamada waxaa ka mid ah Japan waxaa ka mid ah China waxaa ka mid ah South Korea waxaa ka mid ah wadamo badan oo Asia-da ah iyo qayb Afrikada ah xataa wadamadaas waxay fahmeen kuna baraarugeen in ay ka faa'iidaystaan dadkooda dadka marka laga faa'iidaysanayo marka ma aha in qofka lagu shaqaysanayo la leeyahay kaale noo xamaalo wadanka rinji mariyo halkan badda noo dhaqmaa in la leeyahay waxa laga hadlay waxay tahay qofka in empowerment la siiyo qofka in la yiraahdo annagu adaa ku sugaynaa salaadaan soo qaato wadanka Japan dhibaato oo dhan buu la kulmay wadanka Japan la yiraahdo waa jasiirado yar yar oo kala yaacsan oo badda dhexdeeda yaala dhul ma leh oo khayraad ma leh
وحتى هل الجزيرة دو اسكو حيران ما ودور 10 جزيرة دو يريرو سا او كلا فريقسنو بدوينتا دخديدا يال dagaalkii koowaad oo ku baabeen si xun wilib dagaalkii labaad oo ku baabeen si xun wilib oo waayigi lagu dhuftay nuclear-ka dagaalkii labaad 70 sano ka dambeeyayna dhowr iyo 10 jeer baa waxa ka dhacay dhul gariir aad u xun tsunami wax kasta oo xun baa dalkaas ku dhacay haddana maanta wuxuu ka mid yahay 1 iyo 2 iyo 3 wadamada horumarsan wala isweydiiyay waxa la yiri maxaa la khaas Japan maxay la khaas tahay waxa la ogaaday Japanisku inay ka faa'iideystaan dadkooda khaas ahaan inay ka faa'iideystaan dhalinyaradooda waxa Japan ka socda arkaysid oo guul ah oo innovation ah oo wax soo saar ah dawladdu ma samayso dawladdu dadku waxay u abuurtaa nabadgelyo iyo system kadibna waxay ku tiraahdaa annagu idinkaan idin sugaynaa dadow dadka la sugayo waxa koow ka ah dhalinyaradu say wax u soo kordhisa marka oo aragti ula timaado oo ganacsi ula timaado oo innovation iyo halabuur ula timaado waxay u baahan tahay inay han yeelato waxay u baahan tahay inay dhiirato waxay u baahan tahay inay dhabar adeegto waxay u baahan tahay marka aysan cidina wax u sheegin oo aan iskuulka regularka iyo caadiga 12 bilood 12 sana aan la ku soo barin hanka iyo dhiirashada iyo wax isku dayga ee qofkii iskiis intuu internet u galay oo wax bartay oo wax baaray iska lifay computer raadsaday website-yo iska diiwaan galiyay trading fee waxaan la akoona ka gatay lacag shubtay wax soo saaray ambitionkii uu raadinayay uu helay haddii aan laga faa'iideysan marka oo dawladaha iyo hoggaanka bulshadu aysan ka faa'iideysan dhalinyaradaas waa iska yaacaysaa noloshiisu raacanaya marka dadka waalidka ah mas'uuliyiinta ah hoggaanka bulshada ah waxaan u dardaarmayaa oo u sheegayaa dhalinyaradu waa fursad bannaan taala waxay u baahan tahay cid maasha dhalinyarada aan ka hadlayo ma ahan kuwa adiga kaa raba maanta inaad dhiirigelisid qofka dhalinyarada ee traderka ah ee suuqyadan aan ku jirno qaybta ka ah trading kaliya kuma jiro tradingka waxa u dheer han bay leeyihiin hal abuur bay leeyihiin dabeecadahooda isbedela habitiyadooda isbedela imise qof oo trader caawi dhageysanaysa baa markay forex soo galay xataa labiskooda isbedela waxay ka fakarayaan waxay madaxa ku hayaan dadkay raacayaan ee qaabka u dhaqmayaan hankay leeyihiin awal waxay ka fakari jireen hooyo shaqo igee ama aaba shaqo igee ama adeero qolo igee hadda waxay ka fakarayaan maxaan qoyska u qabtaa boos xageeyaan dhisaa maxaan tallaabo sameeyaa so we did already anaga qaybteeni oo ah in dhalinyarada la talaalo la abuuro han la sameeyo madaxooda kor loo qaado la fahamsiiyo dawladuhu adduunku dadka wax ma taraan dawladdu laba shaqay leedahay inay dadka kala ilaaliso cadow banaanka imaanayana ka ilaaliso labada shaqo haday qabsato waa inay bulshada baritaarto tiraado wadanku aduu ku sugaya dadkii marka dawladaha adduunku dadka iyaga maalgeliya iyaga waxay u sameeyaan institutiono iyaga tababaraha waxay kala shaqeeyaan qofkaan inuu wadanka wax u qabto ee ma aha in dawladdu qofku wax u qabanayso marka dhalinyarada tradersku waxay la khaas yihiin ayadoo institution caawin kooxi caawin group gaara iyo dawlad gaara caawin iyagu is abaabuleen wax qabsadeen horumar iyo guul la taaban kara gaareen dadka noocaas marka haddii wadanka gudahiisa ay ka waayaan in ay helaan mudnaantii ay lahaayeen in ay helaan istaagi loo soo istaagi lahaa in ay helaan innovationkii iyo fursadihii abuuri lahaayeen qofku wuxuu leeyahay dee wadamada horumar baa iska aadaya waxa iska aadaya Yurub iyo meelahaas u soconaya marka waxaan dardaarmayaa dadka ummadda hoggaanka u ah idinna inaad fariinta gaarsiisaan idinna inaad kala shaqaysaan inay ogaadaan bulshada qayb badan oo ka mid ah oo halkan fadhida kulanka caawa aan joogno wuxuu khatin u ahaa kulamo badan oo isaga la mid ahaa ama uu ka mid yahay kulan walbo aan tagnay kumanaan kun oo qof oo dhalinyaro baan oo timi magaalo kasto aan tagnay waxaan la kulannay boqolaal dhalinyaro oo suuqi ku jira oo lacag ka sameynaya oo la ogay ilaa heer ay gaartay laba qof oo qaraaba oo guri wada degan oo tareerka ku jireen is ogeen oo kana intuu subaxdii banaanka u buuxo waliis soo dhameystaa kana malaha guriga marka looga tago halkan ku tareer garaya dadkii way kala dhuumanayaan qof walba qabbu ku jira because mawduucii iyo wax soo saarkii iyo qofkii inuu han yeesho qofkii inuu dadaalo qofkii inuu naftiisa wax u qabto ayaa waxa laga dhigay wax maaragtay aan macno badan bulshada dhexdeeda ka lahayn oo waayo maxaa macno leh marka inaa xafiis macno leh inuu qofku dhaho meel dawladda ama ka shaqeynaya hay'ad boos laga raadiyo dadka dhalinyarada ah ee wax qabsaday ee hal abuurka la yimi ee trade gareeyay ee financial literacy-ga fahmay naftooda kor u qaaday hankooda kor u qaaday bulshada dhexdeeda lama aaminsan inuu wax la joogo waxa la leeyahay ciyaal waa shay baa la leeyahay marka narrative-ka bedelka inooga baahan kaas weeye waxaan ku gabagabeynayaa oo aan rabaa inaan kaga baxo runtii habeen dheer baa ina sugaya saxiix iyo waxa ina sugayaa iyo sawir badan waqti qurux badan baan qaadananaa madaxda iyo mas'uuliyiinta iyo dadka intii fog waa fasaxaynaa inagu isku haraynaa waxaan ku gabagabeynayaa dhalinyaro
rabaan inaan idiin sheego kaalintii uu qof qaadan karay anigu waa qaatay shakhsiyan ama intii qof ku aaday oo igu aaday aniga waana ka soo baxay anigoo aysan iga ahayn ku faan maxaa xiga marka waxaa xiga waxay tahay waxyaalaha anigu aan ka shaqeeyay waxaa ka mid ahaa in ay fikraddu kor iga gudubto horeyna waa u sheegay arrintan fikradda trade-ka anigu aan wado tusaale ahaan buugta halkan ka muuqda arkaysa buugga u horreeya oo la yidhaahdo qawaaniinta suuqa sarifka lacagaha qalaad waa principles waxaa ku qoran aniga iga horreeyey anigu aan ikhtiraacin karin waxaa ku qoran hadda buugga waxaan u hadiidaynay jaamacado badan jaamacadii qayb baan ugu soo celiyey researchka lagu sameeyaa ku leeyihiin buuggaaga buugga waxaa ku qoran taariikhda lacagta meesha laga yimi fursaddan say ku timi financial industry say u qaabaysan tahay national bankigu shaqadu qabto federal bankigu shaqadu qabto jaamacadda qaybta economiga magaalooyinka qaybtooda research ahaan bay u isticmaalaan shaqada anigu aan qabto waxaa ka mida marka si ay inoogu gasho recordka iyo xogta idinkana aan idiin markhaati gashto in aan fikradda kor isku dhaafiyey taasi aan ka wado wax kastoo aan dhallinyarada u sheegay meeshii aan ka keenay baan xusay iyana aniga iga horreysay inaan anigu ikhtiraacin ujeedku wuxuu ahaa inaan information gap buuxino oo xog aniga iga horreysay oo 100 sano ka hor jirtay oo lagu trade gareeyo inaan soo guurino af Soomaaliyeeno nidaamino reference u sameeyno buug ka qorno dabcan buugaas markaan qornay dad badan waxay dhaayeen waa adag tahay xogtaan oo macluumaadkan waa badan yahay yes boring buu eka yes hasaate ma ahayn labadan la sameeyo halkaas taabo lacag baa sameynaysa ujeedkeenu ma ahayn ujeedkeenu wuxuu ahaa inaan keeno xog iyo information iyo macluumaad aniga iga horreeyay fursadda iyo fikradda kor baan isku dhaafiyey hoosna waa isku dhaafiyey oo sideen hoos kugu dhaafiyey waxaa jira caawa halkan jooga magaalo kastana waddan kastana jooga boqolaal dhalinyaro ah oo macluumaadka iyo xogta bartay fahmay practice gareeyay ku shaqeeyay lacag ku soo saaray dad baray dadkii ay barayna lacag ku soo saareen taas waxay ka turjumaysaa anigana xol layga baahnayn marka intaa waxaan ku daray inaan culture abuurnay dadka dhalinyarada ah ee aniga xertayda ah ama si hoose la socda culture waxaan abuurnay jacayl oo runtii caawa halkan ka dareemi kartaan oo culture iyo dhaqan waxaan abuurnay meelo dad isjecel walaaltinimo ka dhaxayso iswadasho ka dhaxayso isgarab istaag ka dhaxayso isbaritaar ka dhaxayso negativity ayaan lahayn qof walba qofka kale inuu kor u qaado ka shaqeynaya qof walba qof kale tala iyo fikir iyo aragti wuxuu ku dari karo ka shaqeynaya daa'is waxa aan dhisnay taas laftigeedu way gudubtay meel kastoo aan event ka qabanay kulan kastoo aan qabanay dadka nagala soo qayb galayay sawirka koowaad ee laga akhrisanaya taas ay ahayd dhalinyarada marka Soomaaliyeed ee suuqan ku jirta iyo bulsho weynta idageysanaysa waxaan u sheegayaa in aan culture abuurnay culture kaasoo influence wata culture kaasoo shakhsi intuu ka tagay iyo waxay maraysaa maanta in boqolaal dhalinyaro aniga aan aqoon ila kulmin waligay arkin qaabka uu ninka odayga u shaqeyn jiray inuu shaqeeyaa oo ah inay bulsho caawiyaan inay xoog soo gudbiyaan inay dad garab galaan badankooda waxay ku bilaabaan qaraabadooda qoyskooda asxaabtooda bariga hore maxaa jirtay inuu qof kasta raadiyo school ama iskuul maaragtay lacag yar ku bixiyo wax ka gato ma ina leeyahay iskuul waxyaan laga gadan laakiin culture dhan oo waxaan noo barbar socday cilmiga iyo macluumaadka aan wadnay iscaawin isu tiirsanaan isgarabgal isla jaan qaadid waxaan rabaa marka inaan xuso waxaan diyaariyey ku dhawaad 250 muuqaal wax ka badan ba YouTube-keena ku jira 200 oo kun oo qof baa ku xiran 3 buug oo qaab akademiga loo qoray oo aan fikrad shakhsi ahayn baa inoo qoran intaas ma ku filanta inaan dhaho waa teramkayga waa dhamaad waa ku filanta ma waa mahadsantiin marka and that's exactly waxaan sameynay 2 sano ka hor ayaan wax walba xoog aan ugu dhameeyay 2 sano la soo dhaafay marka waxaan nala dheeraatay oo aan ku jirnay kulamada noocan oo kale inaan qabanno buugtan aan dadka soo gaarsiino wixii dhiman oo su'aalo inaan ka jawaabno intiina waa dhamaynay waxaan marka anigu ku faraxsanahay in meel anigoo shakhsiya oo kaligay ah oo qol yar oo Sweden aan joogo ku jira aan video ka soo duubayay ama aan Zoom ka soo galayay culture-ka iyo influence-ga inta leeg inuu ka dhashay waxaan qirayaa runtii inay bulshadeenu diyaar tahay qofka diyaarka ah
haddii aan positive looga faa'iidaysan negative baa looga faa'iidaysanaya dhallinyaradeennu jiilka hadda jooga ee janziga la yiraahdo janziga waxa loo yaqaanaa dadkii 1997 wixii ka dambeeyay dhashay waa dad u nugul in la saameeyo haddii aynaan helin marka dad dhallinyaradeenna sida positive-ka u saamaysa waxaa imaan karta in si negative loo saameeyo waxaa u taalla mas-uuliyiinta iyo waalidka iyo institutionska iyo hoggaankaba inay ka shaqeeyaan meeshaan rabna aan joogno shanta Soomaaliyeed meeshaan rabta joog qurbaha iyo jaaliyadaha joog bulshada ama dhallinyarada janziga la yiraahdo waa dadkii la jaan qaaday internetka iyo xadaaradan haddaysan helin dad si positive u saameeya ila waa dad joogay oo xaadir ahaay cid si negative u saameysay helayaan dhalinyarada aynu ku saameyno horumar aynu ku saameyno hogaamin aynu ku saameyno inuu qofku naftiisa wax u qabsan karo qof kasta oo annaga naga mid ahna taas waa uu qaban karaa in cid ku dirto uma baahni in cid gaar ah mushahar kugu siiso uma baahni adigu wanaaga u istaagi kartaa wanaagaas oo 1000 fold iyo laabanaya wanaag kasto aad sameeysid wanaag kasto aad sameeysid kun jeer buu ku soo laabanaya anigana taas marxaati ka intaas waxaan ku gabagabeynayaa kelimadahaas aan rabay dardaaranka iyo waxa la yiraahdo ee ali karo hadii ay weydiinaysid marka aniga legacy-gaygu maxay tahay legacy-gaygu iyo taariikhda aan ka tagayo waa intaas in buugta aynu diyaarinay waxaan u sameynay jaldi adag iyo warqad adag waxaan ka dabacsanayna waxay ahayd inaan aaminsanahay qof aan hadda wili dhalan ya kamerada meel ina aaminsanahay waxaan aaminsanahay qof aan hadda wili dhalan oo maybe next year dhalan doona 30 sano kadib hadduu xogtaan iyo macluumaadkaan helo inuu lacag ku samayn karo sababtoo ah aniga ku sameeyay sababtoo ah xogtaan iyo macluumaadkan aniga 30 sano iga horeysa waxaan u ikhtiraacay ma waxa isku aadaadiyay ma qaabka iskugu aadaneed qaab ka sii fudud oo qof af Soomaaliya iskugu aadin karaan iskugu aadin marka legacy-ga iyo taariikhda iyo waxa aan bulshadeena uga tagayno waa intaas waa maasantiin jannagalayaal